Assalaamu calaykum. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa jiray laba rah oo saaxiibo ah, isugu dhow sida walaalo oo kaleeto. Mid wuu buurnaa, midna wuu dhuubnaa. Mar walbana waxay jeclaayeen inay ku ciyaaraan khatarta, waxayna mar walba wareegayeen kaymaha. Si kadiisa ayaa waxay ku arkeen nin beeraley ah oo joog kaga tegay meel. Waxay jeclaysteen inay arkaan waxa jooga ku jira, sababtoo ah joogu aad ayuu u weynaa, mana aysan awoodin inay arkaan waxa gudihiisa ku jira. Kadib waxay go'aansadeen inay boodaan. Jooggu wuxuu ahaa mid ay caana ka buuxaan, wayna awoodi waayeen inay ka soo baxaan maadaama uu jooggu aad u weynaa. Waxay ku qasbanaadeen inay dabaashaan si ay naftooda u badbaadiyaan. Way dabaasheen oo way dabaasheen, balse kama soo bixi karaan. Saacad kadib, rihii buurnaa wuu daalay. Wuxuuna ku yidhi saaxiibkii, walaalkay, ma lihin awoodan ku sii wadno, rajana kama soo muuqato. Meeshan hoos ayaan u sii dhacaynaa, marba marar ku sii xigta meeshan ayaana ku dhimanaynaa, qofna nama badbaadin doono. Haddii aan noqon lahayn sida balanbaalis, waan ka duuli lahayn, balse maanta waxba ma awoodno. Saaxiibkiina wuxuu ugu jawaabay, walaalkay, isdeji, dabaashana wad. Qof ayaa inaga saari doona ugu dambayn. Ilaa iyo inta aan wadno dabaasha, ma quusayno, mana dhimanayno. Kadib waxay sii wadeen dabaashoodii muddo saacado ah. Markii ay cadceeddii dhacday, ayuu rihii buurnaa yidhi, ma awoodo intan in ka badan inaan sii wado, mana lahan sababaan u sii wadno dabaasha, waayo xaggan ayaan ku dhimanaynaa. Saaxiibkiina wuxuu ugu jawaabay, saaxiib wad, ha quusanin. Balse rihii buurnaa wuu joojiyey dabaashii. Caanihii ayuuna ku dhex maquurtay, wuuna ku dhintay. Rihii dhubnaa aad ayuu uga xanuustay waayista saaxiibkii uu waayey. Saaxiibkiisii uu aadka u jeclaa. Ilmadiisa ma uusan awoodin xitaa inuu celiyo, balse ma uusan quusanin ee wuxuu sii watay dabaashiisii. Si aad uga degdeg badan sidii hore ayuuna u dabaashay, si uu isku ilowsiiyo xanuunka qalbigiisa ka dhex guuxaya. Markii la gaadhay xilligii cadceed soo baxa, ayuu si lama filaan ah uga soo dhex baxay. Si farxad ku dheehan tahay ayuuna ugu soo booday geedihii. Hadafkiisii waa uu gaadhay, welina wuu nool yahay. Haddana wuu murugaysnaa, sababtoo wuxuu waayey saaxiibkii. Muuna awoodin inuu caawiyo saaxiibkii, sababtoo saaxiibkii wuxuu dhintay markii uu go'aansaday inuu isdhiibo. Ma aragtaa, ma guuldaraysanayno ilaa aan isdhiibno ama aan quusanno. Noloshu way adag tahay, balse waa inaad adigu ka adkaataa, ugana adkaataa si aqliyeysan. Weligaa ku faraxsanoo waxaad haysato, hana quusanin. Fadlan haddaad u aragto muuqaalkan mid muhiima, like saar, kuna soo biir channelkeena si aad ula socoto muuqaalada dambe aan soo gelino. Waxaana kaaga tagayaa ahow qof togan.